waxaan rabaa inaan barto video editing-ka. Sidee baan ku bilaabaa? Application-kii ayaa ugu wanaagsan kuwa bilowga ah. Halkeen ka heli karaa casharada ugu fiican? Waa su'aasha is weydiiyaan dadka raba inay bartaan muuqaal soo saarista ama video production-ka. Editing-ku waa mid aasaasi ah marka loo eego ka shaqeynta barnaamijyada muuqaal soo saarista software-ka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad hal muuqaal midba kan kala daba dhigto. Professional software-ka waa kuwa xiiso badan, mana jirto sabab aad isaga dhaafto. Taladeedu waxay noqon lahayd inaad adeegsato kuwa professional-ka ah. Tusaale, Final Cut Pro waa fiican yahay haddii aad awooddo. Waa mid ka fudud kii hore intaan la soo saarin version 10.4-ka. Programka aad u adkaa, dadka bilowga ma sameyn karin. Hadda laakiin sidii hore waa ka fudud yahay, waana la isticmaali karaa. Adobe Premiere oo kale sidoo kale waa wanaagsan yahay. Mar kale waxaa adeegsada xirfadlayaal badan. Sony Vegas Pro wuxuu leeyahay casharo bilaash ah af Soomaali ah darabti. Sidoo kale waa software professional ah, waxaana adeegsada dad caan ah oo aad taqaanaan oo casharo xitaa ka sameeyay arrimahan ku jira. Wondershare Filmora wuu sameyn karaa editing, wuxuuna leeyahay nooc bilaash ah oo loogu talagalay dadka bilaabaya. Marka dhammaan barnaamijyada software-ka oo muuqaal jarjarista ama video editing-ka waxay qabtaan shaqo isku mid ah. Haddii aad barato asaaskooda, dhaqaaqida midka kale waa mid ku fudud. Ha ka walwalin haddii dadku kuu sheegaan in mid ka fiican yahay isticmaalka ama ka xirfad badan yahay isticmaalka kan kale. Waa u madax banaanta in programka adiga aragtid aad isticmaasho. Waxaad u baahan tahay waqti dheer in dhammaantood isticmaasho, laakiin barashada asaasiga mid ka mid ah kuwa kor ku xisan, khaasatan Wondershare Filmora ayaa aad ugu wanaagsan. Aan u soo gudbo casharada. Baro adoo sameynaya. Hel software-ka, hel muuqaal ah, ha noqdaan midkood inaad adiga soo duubto ama internet-ka ka soo dejiso oo aad ku bilowdo inaad wax ka beddesho. Markaad tas sameyso, waxaad bilaabi doontaa inaad ogaato wixii ka maqan. Marka waad baari kartaa, waxaad ka heli kartaa casharro video ah internet-ka oo aad raacdo. Marka la eego casharada barnaamijyada software-ka, waxaa jira kuwa badan oo bilaash ah oo tayo sare leh oo YouTube-ka laga helo. Waa arrinka kaliya ayaa ah raadinta waxa aad rabto inaad ka ogaato. Tusaale, sida loo edit gareeyo YouTube videoska, sida loo isticmaalo program hebel iyo wixii la mid ah. YouTube channelada qaar aad ayay u fiican yihiin, ajaanib ha noqdaan ama Soomaali ha noqdaan. Mawduucyada intooda badan laga bilaabo asaasiga ilaa laga gaaro advanced ayaa lagu dabooli karaa baahida qofka baranaya. Yacni qofka inuu programka bilow ilaa ay dhamaato oo barto. Waxaa jira koorsooyin lacag ah kuwaas oo u muuqda kuwa qaabaysa oo bilow ilaa ay dhamaad leh oo tayo sare leh. Haddii aad awoodid, fikrad ahaan waxaad u baahan tahay inaad qurxiso filimada caalamiga ah ama heesaha fanaaniinta caanka ah. Way fiicnaan lahayd inaad hesho muuqaalo aad ku barbarato, laakiin meesha aad wax ka baran doonto ayaa ah adigoo dhamaystiraya projects waaweyn. Waxa aad arki doonto ayaa ah editorska xirfadlayaasha ah badankood ay qaban karaan shaqo ka badan editing. Hal qof oo editor ah ayaa waxa uu qaban karaa isku laab dhanka toosinta, director-gareynta filimada, saacidda kalarka, qorista script-ka iyo duubista filimada. Weligay kugula talin maayo inaad barato kaliya editing. Hadda bax oo duub oo jihee filimada qaarkood si aad fikrad uga hesho habka. Hadday ahaan lahayd fiidiyowyada aroosyada, kuwa shirkadaha, heesaha iyo filimada gaagaaban ama riwaayadaha saa u taqaan. Runtii dhib ma lahan. Markasta oo aad shaqadaas ku sii jirto, wax badan aad u sii fiicnaan. Waxaan qabtay waxyaabo badan oo kala duwan intii aan ahaa filim sameeye. Waxaan ka bilaabay sameynta waxyaabaha asaasiga ah sida fiidiyowyada xaafadaha oo kale ama filimada gaagaaban. Kadibna waxaan u dhaqaaqay sixidda mashaariic aad u adag oo loogu talagalay xayeysiimaha ama barnaamijyada lacag lagu qaadanayo. Aad u mahadsantahay. Muuqaalka hadduu ku qanciyay, please like, share. Asxaabta u baahan u share gareey. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.